نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. qisadeenna maanta waxaan kaga sheekayn doonaa insha allah qoomkii nebi yuunis calayhi salaam iyo nibirigii liqay yuunis calayhi salaam. nebi yuunis calayhi salaam waxaa loo diray dadkii ku noolaa naynaawi oo ku taala mawsil ee dalka ciraaq. nebi yuunis calayhi salaam wuxuu dadkiisa ugu yeeray jidka alle yacni inay rumeeyaan alle keliya. wuxuu u waaniyey si daran, laakiin waa ay ka diideen oo qaadan waayeen baaqiisa oo ka doorteen gaalnimo. muddo yar kadib ayuu nebi yuunis isaga cararay qoomkiisa isaga oo ugu goodiyey ciqaab xagga alle ah kaga imaan doonto 3 maalin kadib. markii uu nebi yuunis ka tegay qoomkiisa ayay qoomkii xaqiiqsadeen inay ku soo socoto ciqaab xagga alle ah. markaasay dhammaantood ka toobad keeneen dembiyadooda oo markaasi ay muujiyeen ka xumaanshiyahoodii waxa ay faleen. markaasay dhammaantood waxay soo wada gashteen dhar ka samaysan suufka hargaha xoolaha oo soo dareersheen dhammaan xoolahoodii iyo carruurtoodii. markaasay bilaabeen inay alle weyna baryaan oo u toobad keenaan si ay dembidhaaf u weyddiistaan alle weyne oo keliya. intaasi kadib dhammaantood waxay bilaabeen inay ooyaan oo alle weyne naxariistiisa ay weyddiistaan. waxaa isku soo baxay raggoodii iyo haweenkoodii iyo carruurtoodiiba. markaasuu alle weyne u naxariistay oo ka celiyey ciqaabtii ku dhici lahayd. wuxuuna alle weyne yidhi: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ma way jirtay magaalo rumaysay alle weyne kadib iimaankeedii uu anfaco maba jirin horteeda marka laga reebo qoomkii yuunis. markii ay rumeeyeen waxdaaniyadda alle ayaan ka feednay cadaabta dufaynta ah ee nolosha adduunka oo aan u oggolaanay inay raaxaystaan xoogaa muddo ah. markii uu nebi yuunis kaga tegay qoomkiisa isagoo caraysan ayuu wuxuu fuulay doontii. markii ay ka sharaacatay xeebtii oo ay aad u fogaatay yacnii ay gaartay badweynta ayay doontii waxay bilowday inay liicdo ama ay dheeliso. waxaa kacay hirar aad u waaweyn oo dabaylo ba'an sita oo doontii marba dhinac u dheeliyey. markaasay doontii ku sigatay inay quusto. intaasi kadib naaquudiyihii doonta hagayey iyo dadkii saarnaa doonta waxay ku wada tashteen waxa ay ka yeeli lahaayeen xaaladda ay ku jireen. waxay isku raaceen in qorituur loo sameeyo magacyada dadka rakaabka ah ee doonta fuushan. qofkii uu magaciisa soo baxana waxaa lagu heshiiyey in badda lagu tuuro si doonida culayska looga qafiifiyo. markii ay sameeyeen qorituurkii waxaa soo baxay magicii nebi yuunis calayhi salaam. mase aysan doonayn inay ku tuuraan badda maadaama ay garanayeen toosnaantiisa iyo taqwadiisa. waxay mar kale ku celiyeen qorituurkii. misna waxaa mar kale soo baxay magicii nebi yuunis calayhi salaam. misna waxaa la sheegaa in mar saddexaad ay ku celiyeen oo isla magicii yuunis uu soo baxay. waxay ahayd markaani in lagu tuuro badda maadaama uu alle u qadaray mar hore. markii badda lagu tuuray ayuu alle weyne wuxuu u soo diray xuud ama nibiri aad u weyn
oo liqay nebi yuunis calayhi salaam. nibirigaasi looma oggolayn oo amar kama haysan xagga Alle inuu cuno hilibkiisa ama jebiyo lafihiisa, waayo ma ahayn risiq loo qoray. markii uu nebi yuunis calayhi salaam uu galay calooshii nibiriga ayuu wuxuu mooday inuu geeriyooday. wuxuu fidiyey lugihiisa oo dhaqdhaqaajiyey jirkiisa oo dhan. markaasuu ogaaday inuusan geeriyoon. wuxuu arkay gudcur ama mugdi daran oo uusan waxba ka arki karayn. markaasuu la dhacay sujuud oo yidhi, allow waxaan ku dukaday meel aysan cid kale weligood kugu caabudin. ليس غير الله ربا للعباد. saa'intaasi kadib nibirigii liqay nebi yuunis calayhi salaam wuxuu u sii quusay badda salkeedii hoose. markaasuu nebi yuunis calayhi salaam wuxuu maqlay tasbiixda uu tasbiixsanayo nibirigii ama xuudkii uu isaga calooshiisa ku jiray. sidaasi oo kale wuxuu maqlay tasbiixda noolaha kale ee badda ku noolaa. markaasuu isagiina bilaabay inuu tasbiixsado uu Alle weyne uu dembidhaaf weyddiisto. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. xusna dannuun yacni yuunis markii uu tagay isagoo caraysan oo mooday inaanan ciqaabi doonin, waa ishaaro musiibadii ku dhacday isaga. wuxuu ka dhawaaqay mugdiyo dhexdooda isaga oo leh, laa ilaaha ilaa anta, allow adigaa nasahan oo aniguna waxaan ka mid noqday gaflooyada. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. markaasi baan ajiibnay dhawaqiisa oo ka badbaadinay murugadii. sidaasi oo kale baan u badbaadinaa mu'miniinta, yacni haddii ay inoo dhawaaqaan. saamarkii nebi yuunis uu Alle u toobad keenay ayuu Alle weyne ka aqbalay toobadiisa. maxaa yeelay nebi yuunis wuxuu ka tegay qoonkiisa iyadoo aan la amrin inuu ka tago, yacni isagoo aanan amar ka haysan xagga Alle. intaasi kadib waxaa la sheegaa in nebi yuunis uu ku jiray calooshii nibiriga muddo 3 cisho ah ama in ka badan, laakiin Alle weyne ayaa inaga ogsoon xaqiiqda. كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم. haddii uusan ka mid noqdeen kuwa u tasbiixsada Alle, wuxuu xaqiiqdii ku nagi lahaa, yacni ku sugnaan lahaa gudaha calooshiisa, yacni caloosha xuudka ama nibiriga ilaa iyo maalinta soo bixinta, waa maalinta qiyaamaha laakiinse waxaan ku soo tuurnay xeebta bannaanka ah isaga oo bukay, yacni isaga oo aad u liitay tabar ahaan.
markii yuunis calayhi salaam uu garowsaday inuu kula yimaado erayadan calooshii xuudka ama nimirigii dhexdiisa wuxuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min addaalimiin ma jiraan cid mudan oo xaq u leh in la caabudo adiga mooyaane allow adigaa nasahan aniguna waxaan ka mid noqday gaflooyada ducadii nebi yuunis waxay ka soo muuqatay carshigii alle hoostiisa saa malaa'igtii waxay alle ku yidhaahdeen rabbiyow waa cod daciif ah oo la yaqaan oo ka imaanaya meel aan la garanayn markaasuu alle ku yidhi miyaydaanan garanayn codkaasi waxay yidhaahdeen may rabbiyow waa kuma alle weyne wuxuu ku yidhi waa addoonkaygii yuunis saa waxay ku yidhaahdeen rabbiyow ma addoonkaagii yuunis oo salaad iyo sadaqo iyo camaladiisa wanaagsan ay samada yimaadaan dabadeed waxay ku dhaheen rabbiyow miyaadan u naxariisanayn maadaama camaladiisii ay wanaagsanaayeen markii uu ladnaa oo aadan ka saarayn dhibka uu maanta ku jiro saa alle markaasi ayuu xuudkii ama nimirigii ku amray inuu yuunis ka tuuro xeebta muddadii uu alle ugu talagalay yuunis calayhi salaam inuu ku jiro calooshii nibiriga kadib wuxuu alle weyne xuudkii ku amray inuu ka tuuro meel xeeb ah oo geerigo'an ah cidna ku noolayn oo aanan lahayn dhir iyo daaqba wuxuuna nibirigii soo tuuray yuunis calayhi salaam oo tabar daran oo aanan dhaqaaqi karayn saa wuxuu alla sababay in meeshii yuunis calayhi salaam uu xuudkii ka soo tuuray uu ka soo baxo geedka loo yaqaana yaqdiin oo sida qaraha ama xabxabka dhulka ugu faafaa waxayna carabta maanta u yaqaaniin qarac ama bocor saa waxaa sidaasi oo kale la sheegaa inuu alla weyne u soo diray sagaarooyin iyo biciidyo oo halkaasi ka cunaya cayayaankii dhulka ka buuxay heer uu alla weyne u saqiray yuunis calayhi salaam inuu cabo caanihii sagaarada iyo biciidyada inaad caano ka cabto sagaaro iyo biciid iyo inaad midho ku cunto meel geerigo'an ah waana waxaanan sahlanayn waxayna ahayd naxariis uu alle u galay rasuulkiisa yuunis calayhi salaam waana halka uu alla weyne ka leeyahay فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين markaas baan ajiibnay dhawaqiisa oo ka badbaadinay murugadiisa sidaasi oo kale baan u badbaadinaa mu'miniinta intaasi kadib markii nebi yuunis calayhi salaam in muddo ah uu ku noolaa xeebtii agteeda ayuu alla weyne dib ugu diray mar labaad qoomkiisa si uu u arko xaaladdii isbeddelka ahayd ee ku dhacday qoomkiisa maxaa yeelay waxay dhammaantood rumeeyeen alla weyne نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القصص النبوي qisooyinka nebiyada